السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسود هذا برنامج كيني قيبتي سدحات 1.5. ما أنتو حاني سو بندقينا sanadkan geedi socodka doorashada ee Soomaaliya waxa lagu dooran doonaa tani waa xilli dhab ahaantii muhiim u ah taariikhda Soomaaliya. hadda waxa laga bilaabo waxa way hal musharax ama mushashax aan waxaan sameeynaa ciidtiisi dhibaatooyinka wadanka uu ku soo sameeyay aan ka hadlayna. maanta waxaan soo dhaweynaa murashaxiin cusbaa oo qadiimka iska ahay oo haddana mar labaad wuxuu leeyahay balooniga mar labaad aan soo dhiilaa gacmo furan ku soo dhaweynaa. musharaxiin hore wuxuu ahaan jiray sidiisa hore saan markii dambe saan uu noqday. wuxuu xukumayay Soomaaliya muddo oo adiga 4 sano laakiin asagu waa inkara wuxuu dhahay 3 sano waa okay 4 sano 3 sano mushkil ma laha. waa murashaxa kaliya oo waligiisi ra'iisul wasaare banaanka u dirin, wasiirka arrimaha dibadda banaanka ma u dirin, wasiirka dhaqaalaha banaanka ma u dirin, wax wasiir dhan dirma. shirarka dhan looga kulmaayo shirki ahaadaba asaga ka qayb galay. hatta way daaleen yani dawladaha adduunka markasta markay ra'iisul wasaarooyinka ama wasiirada dhaqaalaha ama wasiirka beeraha iyo markay ku kulmayaan jaamacada carabta ama African Unionka ama United Nationska asaga la joogo. والشيخ شريف وحنا عدل ما رئيس وزراء عدل مركو حوا ان مرشحين وحوا وحياله بدن او اسو هلغمي ودنكا waxaana kamid ah dhaweyntii oo xoog lahayd oo soo dhaweeyay ان السيد رجب طيب أردوغان oo xamar ku soo dhaweeyay oona ka gaartay fadeexad weyn. fadeexadaasna waa xasuusintiina u maleeyaa inuu cunugii Soomaaliga ahaayo oo qaxootiga kaamabka ku jira xamar oo wiligiis arkin asaga oo ka warqabin inuu madaxweyne ziyaarad ugu imaado oo dhakoodii meesha aan ka bilaabo. taas waxay ahayd fadeexooyinka koowaad oo saaxiibkiina ay qabsatay. haddana waxaan rabnaa inaan niisoo bandhigna barnaamijkiisi cusbaa oo asaga afkiisi ku qatay oona ka hadlay oo dhahay barnaamijkii waa kan. ninka koowaad wax weydiiyay wuxuu ahaa nin saaxiib ahaayeen oo isu soo halgameen. markuu Jabuuti joogay annaga waa la joognay waana la soo halgamnay asxaabtiisi baan annaga su'aal ma lahayn meesha laakiin wuxuu weydiiyay hatta asaga ma uu wuxuu weydiiyay. su'aasha labaadna waxay ahayd dhalinyaradaas ma jiraa qorshe aad ugu tala gashay in xabsiyada looga soo saaro maadaama ay ku xabsiyadu ay ku jiraan ay haysan ahayn wadankooda aysan ahayn. jawaabtiisna saana ahayd نقطة كلا وحواي نقطة قبل وإيش أكتي لأن يرضى إلا جهيل الله أبو رشقه إلا أبو روح برشة ما تقدروا هاللاي فيديو قاس وحكوا جرا يوتيوب كا وفي السنة كتير هذا 20 ما تقدر أسوى هاللاي جوابتي وحو أهد إني لأن يرضى شقل له أبو رش يا أخي قبرت وحكوا له هاي لأن يرضين وحكوا حريين وضملا أدونك وإني باتيسين قربي كحريين شقل أو أبوريس ما حتى شيخو weligiina ma aragteen dad oo xirxiran oo wadamo qurbo ku xiran oo shaqo loo abuuray. markii dambana wuxuu yiri waxaan u maleynayaa kaaga jawaabo إنك كجوابنا ملينا أو كل حاجة هذا كوكا نحسن ماشي صار وجود إن شاء الله يعني markasta waxay noqotay dhalinyarada beec mushtar qof kasto iska beec mushtara. su'aasha runta ahayd oo dhabta ahaydna telefishinka markuu weydiiyay waxay ahayd waa kaaga jawaabo u maleynayaa. markaana wuxuu leeyahay 4 sano kala ama 3 sano way yareed amal 4 sano hal iga dhigo 4 sano waxa waay waxyaalo badan oo leeyahay asaga ka soo bartay yani oo leeyahay yani oo qaladaadkii hore uu sameeyay. qaladaadka uu sameeyay waxay ahayd waxa waay inuu oo asaga yani inuu hadda saxa okay muxum inaa saxdid laakiin qaladaadka intay ka saxaysaa meelba ma haystid sheekho. yani anaka been noo sheegaysaa waana bahdisheen beenan ugu abuurteen waxaan idinka aan noo soo biseen ma arkin dhibaatadii oo markasta taali markastana way noo taalaa. marka waxaan rabnay sheekhow hal shay rabnay inaan ka ogaano. Rwanda aaday waxaa tiri Rwanda tagay. Rwanda waa tagtay. Rwanda waxa waa dawlad oo dagaalka gadaashiina bilaabeen waana joojiyeen. maanta Rwanda halkay marayso Hutu Tutsi waxa iska dhigeen abar la isku dhigay meesha waa lagu kala tagay. abar la iska dhigay 1 milyan wax gaaray muddo sanad 800,000 say sheegtay UNICEF. laakiin adigu waa tagtay maxaa ka soo baratay? hadeertan waa ognahay Rwanda in dhulkeeda ma arkano oo muraayo uu yahay oo maalin kasta subax kasta la nadiifiyo laamiyada
Kisangani haddii magaceeda ay saxsan tahay ma xasuustay caasimadeeda. So waxaan rabnay madaxweyne jaala musharshax waxaan rabnay inaan ogaano wax yar yani adiga barnaamijka aanu soo wadid oo saxsan ilaa hadda ma ka fahmin. waxaan aaminsanahay inaan ahaa murashaxa ugu munaasabsan maanta. weli waxaa sii leedahay ina adiga aad ninka ugu munaasabsan hadeertaan oo qaban kara laanu khibrada hore u soo lahayd. طيب خبرت aad soo leedahay adiga barnaamij ilaa hadeertaan oo cad kama arkin يعني وأجنها أنا ضد أصحابها بدن إن السفيرة كبكتي تاسنا وحاو عدي سفير الماذا وحين نقطة صاحب تنمو يقفها تقالنا أقرت يعني قفك يا وحين نقطة مال قفك اللي هذا سفير الماذا وحل إسكام عابا ولي وحكاسي أجنها إن أديك أنت وزيروين دولة وجيران أكبر قبل ولها وزير هذا وحال جالسي أفرت صدق إستقالة أهاين لكن أديك أفرت إستقالة قوقر طبعا أصحابها وعملنا marka sheeko waa ognahay anaga sheekada inay aad u dheer tahay ma fahantay marka waxa waaye waa inuu kulan dambe leeno adiga musharshax waxa tahay oo qatar ah oo 4 sano 3 sano ah ku murmuusi ilaa hadeertan ah xukuumi jirta Soomaaliya laakiin mushkila ma laha marka waxaan arkaynaa mataqaana waxaad noo keenis ma aragto tookadaan 4 sano insha Allah hadii ku doorana ma arkno aan horta kulay qof aan dooranay ma laha laakiin hadii lagu doorto oo aareysid ilaahay ku waafaji wax kale ma ku dhahay لكن waxaa maqli jiray ninka wallahi Sharif horta darad maxaa dheesade حتى الشيخ وحنا ما جرو الا حتى افرسن مالك استن كتاغيرا مالك است war Sheikh Sharif wuxuu bileysba maanta ani kama ka wadan aday darad dhan waxa ku sheegay waxaan ku dhaay cuud bileys hadda waxa way Xasan Sheikh haysta ani Xasan Sheikh maanta ma ka wadin ninkaana ka wadin saaxiibkeeni oo inta ku hor wax soo cunay oo hadan mar labaad wuxuu leeyahay oo biisa amal حسن الشيخ وحاو شيغا انه بنات انا كتلي دونو حسن الشيخ وحو ميالو xooguu magaaladu ku yimid waa inuu ka baxaa magaalada Shariifo anu waxaan ku jeclaa mugtaa marmarko waxa waa xikmad aad ku hadasha hadalkaada dhan markano xikmad waa laakiin Shariifo aad ninkan maxaa magaalada rabtaa inaa ugu bixis maxaa ka rabtaa ninkan nin fiican waaye waa qoslaa nin aad u fiican waaye markasta waa qoslaa hatta yani 30 second iyo 15 second aa lagu haystay United Nations dhaxaysa lagu jiiday saacadooyin ayaama dhan oo tutuga waa ni tuga 15 daqiiqo aga dhiga ma 15 second leedahay. Yesterday a journalist asked me to describe Somalia in 15 seconds. xooguu magaaladu ku yimid waa inuu ka baxaa magaalada Shariifo wallahi saaxiibo aad horta waa anu waa ku leeyahay ana gacana ku taag Shariifo runtii laakiin waxa ninka magaalada maxaa ugu bixirta waa fahmi waayo laakiin waxa jira mataqaana ninka engineer Cabdulle Lahay maro hadal sheegay hadalkaas ma igu soconayno dowladda Norway lacag 10 milyan bixisay 10 milyan haddaan fahmay 10 milyan dowladda Norway dhiibta ilaa waxa waay 16 isbuuci hore walaalayaal horta daawadayaal waa maqluusin ummadda Nabi Maxamed inta Allah meesha joogta waxaan sheegaa isbuuci hore dowladda Norway 120 qofood oo Soomaali ah ay waxay u sheegtay inay sharciga ka ceshtay iyo 1600 sugooyin jawaab noocaas ah marka 1600 qof xamar hadii loo celi mashruuca u haysid ilaahay ma ka cabsatid qoslaay يعني 1600 qof hadda kadib oo sharciga laga ceshinayo 120 loo sii sheegay maxaa waay budgetka u haysid ama mashruuca u haysid guri dhan inaad dudumisid oo aad baadishid ummadda Nabi Maxamed inaad dad asxaabtaada inaad noo soo dirtid mida safiira asxaabtiis ka dhigay adigana waxaa noo keentay asxaabtaada inaad wafdiyaal ka dhigtid oo heshiisma oo soconaynin in dawladaha adduunka lacag intay qaataan heshiisma sameeyaan ee guriyadooda ma aragtay ay baabi'iyaan 1600 qof oo Soomaali ah caruura ku jiri karta hooyooyina ku jiraan famila ku jiraan waxa ku jiraan rag dhalinyaro ah oo mustaqbalkooda jidku ku soo baabacay iyo tahriib ada imaanaysid shaahay oo cabaysa adi asxaabtaada inta soo dirtid shaahay meelahan lagu siiyo waxa leedahay hal ii soo celi waxaana cadeey taas heer yani dhalinyarada la celi inay diyaaradda ul kaba loogu diji marka adiga ma dhihi kartid ma saxiixin iyo waxaan suubi ma lahayo heshiiskaas wax ma ka jirin
waxaa waaye caddeen aa lagaa heeyaa ina adiga aad saxiixday ama asxaabta aa soo dirtay inay saxiixeen dadka guddiga oo soo joogaanna Soomaaliya network markay la kulmeen ee yiraahdeen inay waxba saxiixin marka haddii aad nolol u waasi caruurta ku baaba'san xamar dhaxdeeda تربتي فاهي دولت واحد كعشنا إنا وحنا قبضة هاي يو واحد إن مسكارك إنت واحد برتو إنت دوس نولجيو إنت صار بالله يعني تاشي على بونتروس حتى إن دشوا دولت واحد كعشنا إنت واحنا برتو وجيفنا سيسو سكول دوكس نبرتو معنا غنينا مكابينا مع الدوكس نخرو qayb kale iika ka mid ahna waxay joogaan magaalada Burca hatta turjumaanay leeyihiin wallahi qosol ma ahan waa xanuun idinkana aku beec mushtartiin dhiigga Soomaaliga iyo caruurta Soomaalida dhiigooda war adigu waxaa noo keentay qoslaa nin la dhahayo faaleeyaha qaranku oo faaleeya ninkaas ilaahan kugu dhashay ma af Soomaaligu ku hadlaayo ma af Soomaali biya oo qaran Soomaaliyeed u dhigan ma masahota dadka dhageystaan dad caadi ah war dawlad markii la dhisaayo ama guri markii la dhisaayo tusaale ahaan guri markii la dhisaayo guriga asaas uu leeyahay asaaskana waa caruurta markaad aad nin oo waxba fahmaynin yani astaghfirullah ma dhihi kari yani nin dudu ina wax ka sheegay marabi laakiin faaliyaha qaranka marka ay leedahay aniga barnaamijkaas dad badan oo Soomaali ah way ka soo horjeedaan anigana horta dadka kamid ah laano faali wuxuu faalinayna ma arkin wuxuu qaran u yahay ma arkin qaranku yahay ma fahansani luqadu ku hadlay aniga ran xamar ahaayata ma arkin ma fahmay ilaahay iluu waxaan ka fahmay malaha marka waxa laga rabaa madaxweyne aniga horta mar labaad horta waa jeclahay inaan qaado inkastoo aan murashaxiinta waa ka soo horjeeda laakiin adiga mar labaad inaan qaado waan jeclahay maxaa dhacay mataqaana jinniya aqaana insi aan ka siinna karo laana kuwaan waa soo bartay waan aqaana qaarkood kan camal adiga mar labaad hadda ku ceshtid maybe ina wax fiican keentid moogi laakiin waa ku tuuga faaliyaha qaranka naga dhaaf garka ku haysana sheekho faali qaran waxa la dhahaa intaasoo television Soomaaliya iyo idaacadooyin oo halkaas oo London meel kasta ka soo baxaan waxa way hal kamid ah oo saacad program u sameynaya malaha caruurta habkay ku korayaan war Rwanda dadka tagaan weydii caruurta maxaa loo sameeyaa nina khibrad leh hadeertan oo Rwanda ka imaaday oo yaqaan waxaas dhan weydii waxa dhaysa televisionka caruurta maxaa loo sameeyaa Rwanda marka qoslaa waxa naga dhaaf arintaano mara aad Norway imaatid oo dadka bini'aadanka noloshooda aad baabi'isid aad shaahi xamar askaaga cabtid marna United Nations 15 daqiiqo ku murmaysid waxaan leeyahay 15 daqiiqo ma 15 second ma 15 daqiiqo ma 15 minute ceeb way waxaas waa ognahay meesha wax manuu yaala anaka adduunka oo dhan naga soo horjeeda laakiin xogoor wax leen noo sameeyaa namooti xogoor laakiin dad dhan noloshoodan baabi'inaa ina wadamadoodu imaatid feermaysta dhahday wadanku waa safe ha imaadan let's go home amal marka dhihiisi macsuunta oo Kenya ay joogtay let's go home waa dhamaad sheekadii let's go home sheeka yaa ku aaminay let's go home manwali anak mis ingiriisi ku hadlaa le amal no let's go home kulligiin guriga imaada amal guriga maxaa ka sameynaa marka mise kalaabiyada sorry kalaabiyadii oo cusbaayan oo qatarka ahaan ma dhex fadhiisanayna mise bodyguard ka noqonayna sallu ala nabi ya jamaa dadka bini'aadanka waa dhibaataysiin 25 sano ee baaba'siin horta waxaan rabnaa barnaamij oo caruurta soo korinayo oo sax ah telefishinada dhan idinka furteen please waxaan iga tuugnaa hal saacadood ma aragtay intiina dhan hal saac u sameeya caruurta habkii loo bar lahay qarannimada qaranka wuxuu yahay barnaamij yar saacad ma aan faaleeya qaranka anigu waalina faaleeya qaranka faaleeya wax la ma jirto meesh ma joogo nagara laha waa jax risqaad inaan guun marabno waa fahansanay dad badan dhinacaad fadhiyaan jaad cunayaan oo iska raaxaysanayaan risqaadna iska faaleeya qaranka rabtid adee laakiin please
أنا توصل أهم وحن كوكو سوقاتي because أنا في الصومال قاعد مفهمسن والله أنا الحمر والله وحن كم فهمسن ملا because هذه مربى ملا هستا مروح على هذا هاي أخبارك اللي سا مروح على هذا هاي وحال هذا هاي بلوني مروح على هذا هاي نينا واشتي نينا تعسي وتالي ومطنا بابيس هذه وحكى لي سمعتها صاحب إلا هدرتان جيل كجران إلا يوروب إلا أمريكا إلا ميل كستا كوبا بين دلنيرada Soomaalida إلا هدرتان qof wax u qabta alwaasiin adigna waxaan leedahay marwada atooraha aboodi iyo ajeeshan film waxa ku soo dhigo shalabish super ya rasuulullah hadda faaleha qaranka rasmi ah tahay ma ka hadashid dhibaatada dhalinyarada haysta si saaxiibkeen hadda loo weydiinayay oo la yiraahday dhalinyarada xirxir maxaa ku sameeysan wuxuu ku soo gaabay shaqan waa abuura adiga saas camal wada marka dhalinyarada ka hadal hadii ku dhaano berito waxaan u keenaysaa shan minishibi oo markano xamar jib joogan calada ciyaalku waxay aruurinayeen sambus ku gadaan laamiyada ku gadaan qalad waay mamnuuc waay amalno laamiga ma la istaagi karo sambus ma la gadi karo على أساس أنك شركدونا لنا إيه هذه كران إيه كشقين كران سوري يا أخي taawadayaal naga raali ahaadaad aan igu dheeraanay maanta waxaan rabnay inaan iisoo bandhigno dhibaatooyinka waddankeena haysta iyo musharax oo hadda cusub waa inaan kulan dambo iyo musharax cusub waxaan u gudbaynaa qaybta su'aalaha su'aasha daraad waxaa ku reeyay wiil la yiraahdo Carafaad wuxuu degan yahay Muqdisho 15 jir waaye marka videoga oo jawaabtiisi mar horaan duubnay waan la hadalnay Carafaad wuu nabad qabaa waana la xiriiri kartiin haddaad rabtiin marka su'aasha rasmiga jawaabteeda waxay ahayd maqcad shaah Muqdisho waxay ugu bahday maqcad shaah waxa waaye boqorka Iran fadhigiisi Iraniinta oo badleeda ahaayeen oo xeebta oo maaragtay Indian Ocean ka kaluumaysan jiray waxay ku samaysteen qaxwad yar ee iyagu ku neefsadaan meeshaasna dad deganay ma lahayn waqtigaas marka maxaa loo bixiyay maqcad shaah Cumaaniinta Saciid Barqash iyo meelahaas markay soo maraan waxay fadhiisan jireen maqcad shaahna waxaa laga wadaa marka waa fadhigii boqor shaah أو فدي شاه لكن وبقرك ومجلس شاه اللي يجري شاهيد وبديهين كو قحوة كوريا يجري لكن كان شاه أكسو غير حمر ومقدشة سومالي مركا عربي أهانك رواقي أكين واي مقصص أهان وحلوه بحي مقدشة مقعد ساسو كوي مالي سومالينا وحي أهد dadka carabta ama Saciid Barqash iyo Cumaaniinta oo badleeda ahaayeen markay gudaha galeen oo caane ay cabi jireen dadkii markay barteen markasta Soomaalida dad ahlul karam ay ahaan jireen dadku soo dhaweeyaan waxayna ku soo dhaweyn jireen u Soomaal ama Soomaal marka carabtina waxay u bixiyeen magacaas Cumaaniinta wuxuuna ku dhawaaqmay magaca Soomaal kadibna saas waxay ku waxa yimid Portugiiska markuu yimaadina magacyadii carabti iyo Iraniinta ku soo horeeyay ay qaateen saasoo magacii ku baxay waxaan jeclaan lahay magacan su'aashan jawaabteedii waxaad ogaanaysiin walaalayaal BBC maktabada oo BBC London ee ku jirta haddaad aad leedihiin qalad waay ama sax waay aniga aqaana murunku waa jecelnahay laakiin anaka jawaabtan waa jawaab rasmi ah halkaasaan ka keennay waana mahadsantihiin waxaan u hambalyeynaa Carafaad oo magaalada Muqdisho joogo oo na 15 jir yahay ma sha Allah Carafaad waa ku mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabnay inaan la hadalno Carafaad miya Carafaad ها عرفات ما يورنا ما في عندها حقيقة جوكت هذه ها أنا هو حاول برنامجكي 1.5 نينكي وذي مركز عرفاتو أنا كأن وحان سميني قرعات waxaan sameynay baqta nasiib dadka reeyay iyo adiga dad badan reeyay adiga magacaadi noo soo baxay su'aasha qofka ka jawaabay adoo ahay
marka dad badanaa ka jawaabeen laakiin adaa waxaa noqotay qofka oo nasiibkiisu soo baxay magaca marka waxaan jecelnahay insha allah inaan ku leenahay awguuriyo waxaan rabnay magacaadi saddexaad iyo magaalada aad degan tahay waxaa tiri muqdisho soo maahan lambarkaadina waa haysanaa marka waxaan rabnay inaan kuu sheegnaa waad ku mahadsan tahay waxaana jeclaan lahayn inaad la socotid barnaamijkeeni bisha koodeedina waxaad qaadanaysaa $50 waxaad ka qaadanaysaa shirkadda touch okay maxaad leedahay marka ade maxaad leedahay magacaadii horta magacaadii complete noo sheeg عرفات عبد الرزاق محمود حمرنا حقيقة كده انت يا مرك ورديق لي بركن لي ها اوكي بركن لي وعصبتها انا جودر اللي كساي لكن بركن لي انت نو قطع الحوار منو شرح كرت انت قطع حافظه حافظه ودوده بركن لي ها isbitaalka banaadir may u dhowdahay ما شاء الله ما شاء الله بس waa mahadsantahay carafaad magaca saddexaad noo soo qor bisha koodeeda insha Allah shirkadda tashta $50 ka qaadanaysa waxaad ku soo qoraysaa WhatsApp lambarka oo WhatsApp waa mahadsantahay ma fahantay وانا ان شاء الله waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay meeqa jir tahay markaad codkaad waa yiri hay 15 jir tahay ma sha Allah 15 jir qofka caawin ma jirta su'aashan mise adii la iska aliftay mise ada keent su'aash ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله macalinkaada ku caawin miya ما شاء الله وما سنتي عرفادو ان شاء الله ان سؤاش لبادنا ولا سوق قلنا هذا مره لباد رئيس نصيبك ولا لو سو ديرها لعقته اوكي يلا السلام عليكم daawadayaal marka waxaan isoo bandhigaynaa su'aashii qaybtii saddexaad barnaamijkeeni 1.5 waxa waa su'aashana magaalada aw tuulada qasac dheer la dhahayo gabalkay ay ka tirsan tahay tuulada qasac dheer gabalkay ay ka tirsan tahay waa ku mahadsantihiin waa inuu aragti damba insha Allah iyo musharshax cusub salaam calaykum